بني آدم والبا وحو رشاء أسيو قلبي نظيف له وحبا دنبي أن دنيدو كل هين لكيسي هدي أرقتي معلم أما جامعي هدي أرقتي نين دلاء أما دروغيستي لبضا بوحي سوق كوريين هوي آبو هدي أن أقودو قلنا هوي دو وناكسن آباها وناكسن عنو قودو مركو رشا وحي كوبر باريان أخلاق جعيل إيو سي روح بدن وحي مسكحي ugu dhisaan sida uu biritu wax u qabso doono iyo sida uu u tacaamulo dadka ka waaweyn waalidkiisa walaalihiisa iyo jiiraankiisa laakiinse haddii aad ku barbaarisid cunugaaga dil cunfi iyo wax la mid ah biritu muxuu noqon doonaa ma laga yaabo cunuga in uu noqdo mid maskixiyan ka dhisan oo beri kamaal meel ka soo baxo ilaa inuu ilaahay u naxariisto mooyaane daawada haddaad igu cusub tahay kanalka subscribe iyo saar haddaa hore ila joogtiin waa ku mahadsan tahay daawashada video like saar haddii aad ka heshay commentigane waa ra'yigayga aan gudagalna sheekadeena labaatankii January 1930 nin lagu magacaabo Camargo Barbosa ayaa wiil waxa ugu dhashay dalka Colombia wiilkaas waxa loogu magac daray Daniel ayaa maanta qisadeena ku socotaa Daniel sanadka markuu ahaa 22 January 1930 ayuu wuxuu ku dhashay dalka Colombia Daniel hooyadiis waxay dhimatay asigoo hal sano ka yar kadib waxa barbaarintiisa qaatay aabihi wuxuu ahaa nin cabtooy wuxuu aad u isticmaal jiray aabihiisa qamriga markii ay dhimatay hooyadiisa ma uusan ahayn aabihiisa nin ku fiican barbaarinta caruurta aabaha sidaan nii sheegnay waa nin cabtooy kadib aabihi wuxuu guursaday gabadhaas waxayba u xanuunsaneyd maskaxiyan ama waxay qabtay cudurka loo yaqaan xaal nafsi Daniel aabihiisa gabadha uu guursaday waxay ahayd maqasho kadib Daniel wuxuu la soo kulmay barbaarin aad u xun taasoo ka mid ahayd in uu aabihiisa dili jiray eedadiisna ay tahay qof u xanuunsan maskixiyan dilka waxayba ugu sii kordhisaybo in ay ula dhaqmi jirtay si aad u xun eedadu waxay jeclaan jirtay mar walba in ay dhasho gabar laakiin nasiib daro waxay ahayd qof aan waxba dhaleenin waxay aad ugu xumaatay in uu Daniel yahay wiil ayadan ay jeceshahay Daniel mar walba waxa loogu labisi jiray dharka gabdhaha taasoo eedadiisa ay ugu xukumi jirtay jecel ee u qabta gabdhaha markuu iskuulka ku aadanay ardaydu way ku qosli jireen because waa wiil u xiran dhar gabdheed dhibaatadaas waxa u sii dheereed mar walba aabiis wuu dili jiray wuxuu ku dili jiray in uu u keeno lacag uu ku iibsado qamri Daniel wuxuu ahaa wiil ku fiican waxbarashada laakiin waxa uu sii dheereed haduusan aabiisa lacag u keenin guriga ma ku soo hooyi karin kaas asiga waa ilmo yar wuxuu u baahan yahay guri uu seexdo Daniel aabihiisa iyo eedadiisa waxay u ciqaabi jireen tooko aabahana maalin buu lahaa inuu dilo eedadana maalin ay lahayd inay disho dilka waxa uu sii dheeraa mararka qaar waxa lagu sameeyay jirkiisa oo dhan in lagu taago cirbado gacmahana laga xiro lagu sii deey jiray asiga dhibaatada tirada badan waxba ma uu soo arki jirinbo wuxuu aad u jeclaa in uu wax barto wuxuu waxbarashiisa ka maray dugsi sare dhibaatada guriga ka heysatana waa wax la yaab leh kadib wuxuu xiriir la sameystay oo xiriir saaxiibtinimo gabadhii ayaa xiriirkii waxay ugu dhashay 2 caruur kadib waxbarashadii wuu iska joojiyay wuxuu u go'ay in caruurtu u soo shaqeeyo 24 May 1958 ayaa waxa lagu qabtay asigoo wax xadaayo kadib waa la xiray wax yar kadib waa la soo daayay soo deesmadii xabsi kadib markuu banaanka soo baxay wuxuu jecel u qaaday gabar lagu magacaabo Esperanza markuu jeclaanayay wuxuu jiray 28 sano kadib waxay ku heshiiyeen inay isguursadaan guurkii kadib wuxuu ogaaday inaysan gabarba ahayn mushkilo meesha ka dhalatay xanaaq badan kadib gabadhii ayaa waxay u soo jeedisay qorshahaas oo ahaa in uu sakatigi doono wiligiisoo la joogaayo gabdho badan u soo afduubi doonto una keeni doonto asigoo markii hore magac gabdheed ba nacbay taasoo lagu soo cabisaday gishada dharka gabdhaha haddana waxaaba islaantiisa qorsho waxay u sii sameysaybo in gabar walba ay u keeni doonto asoonan waxba la ogaa doonin uu u tagi doono kadibna iska day doonaan ee gabadhaas xaafadeed iska aadi doonto ayagoo u isticmaali doono wax lagu hurdisiyo ama wax maanka dooriyo qorshe dumareed aad ayuu dhib badan yahay ninkii wuu ka ogolaaday kadib mar walba waxay soo sirsiri jirtay gabar
u keeni jirtay waxaa la isticmaali jiray wax lagu hurdisiyo 4 gabdhood markay sidaa ku sameeyeen gabadhii shanaad ayaa ku soo kacday isla markii wixii ka baaba'een kadib waxay aaday saldhiga ninkii iyo xaaskiisa way soo dacweysay 10 Abriil 1964 ayaa waxaa loo soo gudbiyay maxkamadii ayaa waxay ku xukuntay 3 sano ninkii inuu aad u farxay ayuu wuxuu yiri qaadiga soo u mahad celinayo waa mahadsan tahay haddii aan banaanka u baxonay wax dambidaas oo dhan waan ka fogaa doonaa kadib qaadigii waa la bedelay dacwadii dib ay isku rogtay ninkii waxa mar labaad lagu xukumay 8 sano 8 sano ayuu aad ugu carooday kadib markuu xabsiga soo dhameystay 1973 ay hadan marka waxa lagu qabtay Brazil asigoo ku joogo si sharci daraa waxa dib loogu soo celiyay Colombia kadib markuu la soo tarxiilay oo wadankiisa yimid xaafad lagu magacaabo Barranquilla ayuu wuxuu ku iibi jiray rafiisar rumuudyo asigoo wareejinaya shaaricada maalmaha kamida wuxuu arkay bas ka soo deganayaan ardaydii ayuu wuxuu ka soo watay gabar 9 sano jira gabadhaas oo markii hore oo been u soo sheegay si uu soo fogeeyo ama dadka uu soo dhaxbixiyo gabadha yar markuu wadaayo wuxuu ku sirsiray in uu wax soo sii doono kadibna ay soo laabo doonto ninku waa nin weyn qof ka shaqinaysa malahan gabadhii markii ay raacday ayuu ninkii wuuna kufsaday wuuna dilay maantaas kadib wuxuu go'aansaday gabar walba oo kufsado in uu dilo si aan cadeyn loogu helin kadib ninkii ayaa waxa ka shakiyay nin booliis wuxuu isir ninka maxaas oo la sasan yahay kadib ninkii markuu soo baxay cabaar sii socday wuxuu soo xasuustay barta uu dilka ku geystay in uu ku soo iloobi rafiisa kadib gabadhii reerkeedii ayaa waxay wargeliyay in gabadhoodii la weysan yahay booliiskii ayaa raadin u galay ninkii markii hore arkay oo booliiska ahay ayaa wuxuu arkay mar labaad ninkan asoo ku soo laabtay barta meedka yaalay 3 May 1974 haddana waxaa lagu soo xiray isla xaafadii Barranquilla gobolka Colombia kadib waxa loo qoray dilkii ugu horeeyay oo asigu geystay kadib waxa loo gudbiyay maxkamadii waxay ku xukuntay 30 sano oo xarig ah 30 sano muddo markuu xirnay kadib haddana waxa loogu xukumay in laga khafiifiyo xabsigaas oo loogu dhigo 25 sano 5 sano ayaa loo cafiyay kadib waxa lagu xiray jasiiradaas waxay ku taalaa Corgona ee dalka Colombia jasiiradaas xabsiga ku yaalo xabsigaas waxa lagu magacaabaa Alcatraz biyaha ku heeraansano idil waxa ku nool malaaygaas oo loo yaqaan shark malaaygaas wuxuu cunaa wax walba oo biyahaas ka dhex nuuxsado xabsigaas waa xabsi aad u adag aan laga soo bixi karin xabsigaas gudihiisa wuxuu ku jiray 7 sano 7 sano wuxuu raaqibi jiray ama fiiri jiray sida loogu baxsan karo xabsigaas oo sida jasiiradaas malaaygaas halista ugu heerarsan yahay waxa lagu xiri jiray dadka dambiyada waaweyn ama khalaas qofkii meeshaas la geeyo noloshiisa waaba u dhamaataybo ka soo bixisne haba sheeginbo taariikh wuxuu leeyahay aan caadi ahayn taariikhdaas oo hore ayuu xabsi u ahaa jiray laakiin hadda xalkan la joogo waa jasiirad oo loo daawasho tago xabsigaas xaqiiqadiisa waxa laga soo sameeyay filimadaas oo lagu magacaabo Escape from Alcatraz iyo Alcatraz Island iyo filmo aad u badan oo inta aan ku soo koobi karin intaasba waxa xaqiiqiyan lagu soo turjumay xaaladda oo lahaa xabsigaas November 84 ayuu wuxuu ka soo baxsaday xabsiga taas oo u sababtay in uu security xabsiga in yar oo isbirqsi oo sikimo wax sameysana asne oo mar walba doon yar oo indhaha uu ku haystay kula baxay dawladdiina waxba dusha iskama saareen korka iskama saareen waxay istireen ninkii xabsigan ka baxo malaaygaas ayuu ka baxsan karin kadib waxay meediyaha iyo TV-yada u sheegeen in uu dhintay dawladdii waxay jariidada ama meediyaha ku soo bandhigeen in uu dhintay ninkii ayagoo dhahay shark it is the beast kadib way ka fadhiisteenbo ninkii waxayba u xil saareenba in uu dhintay oo kaluunkii xunay markuu xabsiga ka soo baxsan isla markii wuxuu soo abaaray xaafadda Ecuador gobolka Ecuador kadib meeshii ayuu bas ka sii qaatay wuxuu sii aaday xaafad lagu magacaabo Kuwait December
siddeetan iyo afartii wuxuu afduubtay gabar 9 sano jirto asigoo xabsi ka soo baxay aad iyo aad ayuu u dilay si xun ayuu u galay isla maalintii xigto gabar ayaa la waayay sanadka markuu ahaay 84 ilaa 86 intuu u dhaxaysa ayuu wuxuu si isdaba jooga u dilay 54 iyo ka badan oo gabdhahaasoo da'dooda u dhaxaysay 9 sano ilaa 11 jir kadib ninkaan intaas dhibaato uu dadka marsiinayo weligiis guriga uusan degan wuxuu seexan jiray shaaraca wuxuu nolol maalmeedkiisa raadsan jirayne waxyaabaha ay gabdhaha wataan hadday fargal yahay iyo hadday jijin tahay iyo qalimada wax lagu qoro ayuu wuxuu ku iibi jiray shaaracyada booliiskii ayaa weli waxay ku mashquulsan yihiin aysa gacanta kusoo dhigi la'yihiin dilkan joogtada maalin walba u dhaco oo haddana la ugaarsanayo gabdho yaryar ayagoo la yaaba ma gaangiristaraa ka dambeeyaan ma dad kaloo baa ka dambeeya laakiinse marnaba ku fikirin in uu nool yahay dilaagii dhibaatada intaa la eg wuxuu ka geystay xaafadaha kale Guayaquil, Guavedo, Los Rios ee gobolka Ecuador. Daniel wuxuu ahaa nin aad u naxariis daran dilkaas dhan waxa uu suurta gashay uu geysanay inuu gabdhaha masaakiinta oo haddana ilmaha ay ku soo siro maruu indhool iska dhigo dhaho sharcan emooti ama hebelan lacag u sidaayay ma taqaanaa xaafadiis ma igey kartaa ama nakeen toorta ayaan ku soo iibinaa ama keegan ku soo siinaa in uu ciyaalka ku sirto asigoo iska dhigaa qof waalidoo kale markuu ilmaha yar la joogan wejiga uu isticmaalaa markuu oo arrintiisa u hirgasho ka xeestane wuxuu la soo baxaa weji wuxuush kaasi wuxuu ahaa shaydaan oo ilaahay heebad bini aadan siiyey because aad ayuu u naxariis darnaa February 86 ayaa 2 nin oo booliis ah waxay ku qabteen Daniel kadib markii uu dilay gabar 9 jir ah laguna magacaabo Elizabeth Daniel qabashadiisa kadib waxaa la soo saaray maxkamad sare oo ku taalo Avenue ee gobolka Los Grandes maxkamaddu waxaa iskugu yimid dad aad u fara badan dadkaasoo ahay caruurtii la laayay ehelkooda iyo kuwii cabsida ku noolaay iyo dhammaan shacabka oo dhan maxkamadda gudaheeda ilaa banaankeeda waxaa taagnaa waa wada dad kulligood waxay dhigtu u taagayaan xukunka Daniel adiga daawade Daniel maxaad ku xukumi lahayd ma dil toogasho mise xabsi daa'im laakiin waxaa meesha ka dhacay wax cajiib ah Daniel waxaa lagu xukumay 16 sano oo xabsiya dadkii banaanka joogay aad ayay la yaabeen arrintaasi waxayna ku noqotay wax mufaaji'a ha ka reebin dadkii ciyaalkii la leejiray ehelkooda oo arrintaas si aad ugu xumaaday Daniel xukunka kadib wuxuu yeeshay ilaalo oo waxaa loo sameeyay nin ku sii ilaali doona xabsiga dhexdiisa si aan dhibaato loo geysanin ama dhibaato loo gaarsiinin Daniel markii loo sameeyay nin ilaaliyo oo la geeyay xabsigu wuxuu u noqday hotel 5 star asigoo dhex jiifo wuxuu cuno wuxuu cabo iyo staff ma ahanba ninka wadanka dambiga ka galay taas wax lala yaabo maahan because wadanka Colombia ayaa xukunkiisa ugu weyn u yahay ama dad dil ama wax walba sameey dilka ugu xungeyso waxa lagu xukumayaa 16 sano laakiin taas waxa ka soo horjeedsay waalidkii la leejiray caruurtooda Daniel ayaa wuxuu u qirtay 72 gabdhood inuu dilay laakiin xaqiiqa way ka badan tahay 72 ee waxa la sheegay in uu dilay 150 gabdhood Daniel intuu xirnaay waxaa soo booqatay meedigaasoo dhahay aan wareysi ka qaado in uu jejesay oo qosle ayuu wuxuu yiri $50,000 si kadib ayaan wareysi kula yeelanaa meedihii ayaa iskaaga tagay because tuu ka kira $50,000 Daniel waxaa xabsiga loogu geeyay nin lagu magacaabo Badra Alonso kaasi oo ku magac dheeray Waxshiga Andis ninkaas ayaa waxaa la sheegay in uu dilay 300 oo gabar isla wadanka Colombia asxaabteeda ninkaas si qaas ayaan ugu soo hadli doonaa hadda waxaan ku dhex jirnaa sheekadii Daniel laakiin ninkaas 300 gabar uu dilayne waan ka soo sheekay doonaa insha Allah 1989 ayaa Daniel waxaa soo weeraray gabdhii hore u dili jiray gabar kamid ah adeerkii ayaa wuxuu iska fiiriyay staafkii dilayga kadibna wuxuu ku dilay mindi in uu qoorta ka qabtay ayuu wuxuu la dhacay mindi Daniel meeshii ayuu ku dhintay haddii ay maxkamadii dil toogasho ku xukumi weysay haddii uu qaldamay xaakimkii xukuminayay oo dil toogasho ku xukumi diiday waxaa
qaldameen oo mar walba xaqa soo xaadirayo xaakimka samada Daniel wuxuu dhintay asigoo jiro ugu dambeyn Daniel waa la soo afjaray markii la dilay wuxuu jiray 64 sano asxaabteeda qaaliga haddii aad ka heshay sheekadan like saar haddaad hore nala joogtid waa ku mahadsan tahay daawashada fiidiyogan haddaan ugu cusub tahay ha iloobin in aad subscribe noo sameyso kumandigana waa adiga ra'digaaga isxisaabi inta aan lagu xisaabinin ka hor mac salaama